kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Hereer iyo Hargeysa oo toddobaad walba aanu idinka soo baahino stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. barnaamijkeenna toddobaadkana qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah in badan baan mutalaafin Soomaaliya disay Soomaaliya marka waa qariib horta waa af cajiib weey hadda waxa la og yahay contemporary Somali ama af mucaasiriya kan maanta aynu ku hadlayno xamar iyo Hargeysa jijiga laga hadlayo Djibouti 5,000 sano ka hor baa lagu hadlay waa waraysi ku saabsan waxa ka jira doodaha sheegaya in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha ugu facweyn ama ugu qadiimisan ee caalamka waxaan arintaasi aan ka waraystay nin daraasad dheer ku sameeyay amuurtaasi oo la yiraahdo Axmed Maxamed Saleebaan Axmed Shiraac qodobada kale barnaamijkeena toddobaadkan aan idinku hayana waxa ka mid ah waxay iman doonto ma taqaan eedo gabadhii wiilkii waan soo diro waxa la yiri dayaxa ilaahay uu soo dhaafiyay oo day immigration koodii dhinac ka maray waxaan malnaabay in dad muslimiin ku waasiyihiin laakiin saxidktii Neptune ayaa la sheegay in adagtoon la dhaafi karin inta ka warhay war maxaa tiri cawke waa safar lagu tagayo xidiga Mars loo yaqaano oo waliba soo noqodaan lahayn waxaana arintaasi inooga dhici doona wariyaha weyn Axmed Xasan Cawke qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena Hereer iyo Hargeysa toddobaadkana waxaan idinku hayaa jarahayo inankii jaarko kii jacayl kay bado jahanabu igu wada ijawa bijirta baxjarahayo waa qaybtii ugu horeysay ee waraysi magaaladan Hargeysa aan kula yeeshay fanaanada caanka ee Degan Nuur kulanti wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba mar kale meel kastoo caalamka idin nagala socotaan sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn isu soo tarayay doodaha sheegayay in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha ugu facweyn ee caalamka waxa la isku raacsan yahay in aadamuhuba sidiisa uu ka soo unkamay ama uu ka soo bilaabmay gobolkan Geeska Afrika iyadoo khaasatan la soo qaatay dalka Itoobiya inuu ka mid yahay meelihii nolosha aadamu ay ka bilaabantay haddaba maxaa ka jira doodaha sheegay in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha ugu facweyn ee maanta caalamka aynu ku noolay lagaga hadlo dadka haddaba aqoon-yahanada ee daraasada weyn ku sameeyay arintaasi waxa ka mid ah Axmed Maxamed Saleebaan oo loo yaqaan Axmed Shiraac oo isagu dhowr buugna ka qoray luqadda af Soomaaliga isla markaasna imika ka dhigay jaamacadda magaalada Hargeysa isagoo arintaasi iga waramayana waxa uu yiri luqadaha waxa loo kala qaadaa galbeed iyo bari ama waxa la yiraahdo occidental iyo oriental marka kuweena waxa weeye xaqan India wixii ka soo rogan waxa la oranayaa waxa weeyaan occidental ama galbeed kuwa kale waxa la oranayaa waxa weeye oriental waa Shiinaha iyo xagaas Japan iyo Mongolia marka laba gruubo waaweyn ayuu kala baxaa kuwa occidentalka galbeedku waxa la yiraahdaa Indo-European iyo kala baxaan waxa la yiraahdo Afro-Asian Indo-European waxa weeyaan afafkan laga hadlo mesela India Kormar Caucasia ila mesela galbeed oo Yuruba marka Latinka ayaa xaqan madaxka xaqan Hindiga Latinka nadulgaas waxba ka dhaxeeya مثلا هذا المكان ترى كوسو قادو أنا واحد قناة فرانسيسكا ولاتينا دي أما دوه أو ترانيا والله هندي ده حنا سدو طبعا كواحد قلنا يعني مثلا فرانسيسكا على ديس هندي ده حكونا ديس مركا واحد له أوجادي إن لغتها مركا كاتيجوريزيشن كاسو دعاء الإسرائيلي قرض هسي واحد هيكون يسأل بقول أفريقيا صدقي niman Ingiriisa oo military oo meesha joogay oo India ka shaqeyn jiray ayaa arkay wax ka dhaxayaan Ingiriisda iyo Hindiga tiiba la daba galay markii hore muran baa ka yimid markii waxa la ogaaday inay isku group yihiin marka waxa la yiraahdaa groupkaas Indo-European luqadaha Hindigaas iyo Farisiga iyo halka mar
aryan kuwan ay dhahaan Afghanistan Caucasia oo dalkan aynu naqaano Chechnya iyo Lukas ilaa Ruushka waxa xaggaas soo dhan isku raac ayaa la oranayaa iyo Hindi wax ka dhaxeeya waxa soo dhan baa la isku qaaday marka Indo European baa la isku ilaaliyay Indona wad garanaysaa European wad garanaysaa marka groupkaas waa group labaad oo weyn baa jira oo la yiraahdo Afro-Asian kaas marka wuxuu kala baxaa laba group oo weyn hadana soo kanima inagu doonayna si kawan ka hadhay Indo European ka hadda waxaan u soo gudbaynaa wax la yiraahdo Afro-Asian marka waa laba group oo weyn oo waxa la yiraahdo Semitic oo waxa weeye af Carabiga hogaamiyo waxa kamid ah Cibriga ka Yuhuuda Arcadian Armeniga afaf noocaas oo weeyo badan marka afafka waxa la isku yiraahdo waa Semitic groupka kale waxa la yiraahdaa Cushitic waxa hogaamiya af Soomaaliga oo wuxuu ugu horeeyaa cilmiga la yiraahdo etymology-ga taariikhda ereyga marka waxa kamid ah afafka Nubiga maxaan ku raadayay hieroglyphyadii farcanadu ay waxa weeye waa Cushitic waxa kamid ah Oromo waxa kamid ah Afar waxa kamid ah Saho Rendile Konso marka iyaga waxa la isku kala qaybiyaa kuwa Cushitic waqooyi iyo Cushitic koonfureed inna marka waxaan soo galnaa Cushitic koonfureed Axmed aad iyo aad baad u mahadsantahay daraasado aad u badan baad ku samaysay arrintan su'aasha barnaamijkan aynu ku eegaynay waxa weeye af Soomaaliga oo dad fara badan oo aqoon-yahani ay ku doodayaan inuu yahay mid ka mid ah afafka ugu hodansan ama ugu qadiimisan adduunyada dad kalena ay qabaan doodo taa ka duwan adigu dhinacaad raacsantahay والله هرت وحوي إن بل مثل عشان سلمان درسها في صوماليا مركا وغريب هرت وقف عجيب وهي ده دي سمك الله يكو واحد سؤال ده كيو اسمه لها يافكو واي وحوي مثلا أفكار لما كنت تاريخ حالها يو مؤرخين ده أما ده كان مثلا ده لينغويستيكا comparative linguistics كي قانا هذا واحد لوجي هاي contemporary صومالي أما أف معاصرية كان ما أنت ينكو هذا إنه حمر يهرجي سيتشي لقى هذا يجبوتي شن كونوا سنة كهرب الواد لاي سوي سيسا عديم الله يا والله يا علميا بالله يا وحوي هيبوثيسيس كونا سوى حلا نن ليلاه برنارد هاين وكتسن جامعة كولون يونيفرسيتي ليلاه إما كو كتير شغله وارد تايد جلوي لكن دي سكيس وعن وحلا ليلاه بس لانجويج أما بركان بس لانجويج كاسو حوي إيه بس وبد لكن ده يسألوا أصلا هو يسبتها واي مثلا بحوي كونفر الكقرب كونيا way haydaa halka waqooyiga laga oranayo way haysaa ama waxa noo soo weydiiyay iyaguna waxa way weysay marka daadiyay hospital marka baddaas waxa weeye lake baa laga hadlayaa lakegaas waa lake marka loo yaqaano lake Omo ama harada Omo ee xagee ku yaala taala koonfurta galbeed Itoobiya marka waxa la leeyahay thesis-kaas wuxuu leeyahay 5,000 sano ka hor ayaa waxa ku kulmay halka dadkii Soomaaliya ku hadlayay iyo dad ku hadlayay Nile Sudan dad Nile Sudaniga dadkan marka Nile Sudanigi sadana Sudan way degan yihiin Rift Valley-gana way degan yihiin marka ninkaas wuxuu halka ka baaray wuxuu helay ereyo badan oo markii dadka horta kulmaan isaas kala kulmaan laba xadaaradood tayl baxsan baa wixii la qaataa marka dadkii Soomaalida ka ilbaxsanaa Nile Sudaniga oo beerahana kaga horeeyay xoolahana kaga horeeyay deetana waxa la qaatay ereyo laga qaatay xadaarada kolba waxa laga maahdaa ta horumarsan ereyadii marka la qaatay uu meesha ka helay marka waxa weeye ereyadaas ayay deetana 100 erey bay soo qaateen 100kii erey waxa lagu eegay Soomaaliga maanta lagu hadlay way waa isku mid noqdaan marka horta afkan inuu afda weyn yahay shay kama jiro marka laakiin ummadahan Axmed sida adigu ba qirtay taariikhda Soomaalida marka laga hadlayo ilaa 10 sanadood ku dhawaad ayaa diraadkii ugu horeeyay la hayaa marka maxaad ku xaqiijinaysaa ama loo daliishadaa in taariikhinta aad uga badan af Soomaaliga soo jiray horta af Soomaaliga waxa weeye xeel cajiib leeyahay horta waxa weeye af cajiib xaq wuxuu ku horeeyaa la ilaa cilmiga la etymology-ga waxa weeye taariikhda ereyga marka imka af Soomaaligu haddaan wax ku sheego waad yaabi doontaa wax misan waxa weeyaan imka anu 7 sano ugu dambeysay etymology-ga san baaray waxa weeyaan Soomaali muxuu ku noqonayaa etymology waa taariikhda ereyga la ilaa taariikhda ereyga ha ma malaysa absanaano in xaraf kasto Soomaali uu macno leeyahay ومركا لو واحد دول ما كان دول سنة إيري
ama haddaan waxa kale oo uu taasi kuu furaysa markaad baratid inaad erey kasta macnaysid laanna waxaad garanaysaa waa wax dee isbeer baadhood isku gurayso markaa adiga afafkuna saasay u shaqeeyaan bal masalan imika waxa weeye imika laatinku saas u shaqeeyaa imika d e haddaan soo qaato waxay d ugu horeyso waa wax wixii ka laga jarayo kale aad hadday noqotona waa wax lagu darayo dheeraad oo kale ba imika ad hoc markay leeyihiin waxa weeye shiraan lagu talagelinoo deska dheeraad oo kale advance venir bay ka timid verbkaas waxa weeye waa imaad waxa weeye marka advance waxa weeye hore u soco aad waxbaad ku daraysaa dhiidaas Soomaalidu saas kale u samaysan oo mesela markay ugu horeyso imika haddaan mid baan doonaya maanta inaan dadka u sheego laakiin koob iyo labaatanka xaraf waan aqaanaa maanta laakiin macnahooda laakiin mid kulaan dii sheegaya oo laba macno leh horta marka hore waanu ka badsan karaa maadu imika waa negation bay keentaa ama waxay keentaa su'aal imika haddaan ku idhaaho moog og baad garanaysaa soo maha moog haddaad tidhaaho waaba sidkii wuu moogi waxaa baad soo garamaysa hawaka ama mooge mooge waxaa loo bixiyaa qofka dee aabihii dhinto waasaa la odhanaya waxba mooge uurku ku jira markaa wax mooge weeye markaa maadaasoo kale waxay keentaa negation mar dambe imaka inaan dadka ku dawaqiyo oo aad u sii galo laakiin waxaan kuu sheegayaa afkani siduu u dhisan yahay waa si qurux badan oo cajaa'ib haddii la darso oo waxa weeye way axmed adigoo iga raalli haddaan haddana kaa yara dhex galo daraasado iyo warbixino jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo kale hay-addeeda UNESCO ay soo saartay waxay ku doodayaan mid taa aada uga duwan oo waxay leeyihin af soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka imika sii dabargo-aya oo haddaan la dabaqabatayn halis buu daaqaya dad kalena waxay ku doodaan waxaan hubaa inaad ka warhayside in af soomaaligu shalay dhalan yahay oo isaga iyo 500 oo sannadood jiray ilaa imikana uu u baahan yahay inaad loo kobciyo doodaha sidaasa maxaad adigu kaga hortegi karaysaa laba arrimood horta jiro mid waxa weeye tan aynu sheegano sheekh hebel iyo wala hebel iyo waxyaala caynkaas iyo af soomaaligu isma dabaqaya shaqas ma laha waxaana waxa weeye cilmigan archaeology-ga iyo geology-ga oo kale haddii marka laba lakab oo dhagaxa dee taariikhdii la garanayo wax kala soo dhex galaan la garan waayo unconformity baa la yidhahaa marka waxaan u bixiyey isqaban waa horta waxaan imika Soomaalidu sheeganayso iyo waxa af Soomaaligu sheegayo wax isqaban karaya maaha marka haddii labada mid la raacayna afkan baa la raacaya oo isaga waxa weeye ama archaeology waxaan xaalahan dadka qiimeeya ee daadooda sheego waxa ka mid ah waa archaeology-ga waa anthropology-ga waa linguistics-ka waxaan imika aynu sheegayna wax khayaala oo aan wax badan jirin imika shuyuukhdan oo dhan waa isku waqti sheekh ciise sheekh samaroon sheekh isxaaq oo tan soo qaato wax gidigood waxa laga yaabaa inay la dhaafin 400 sano ama 450 sano markaasina wax midda kale daa Soomaaligu madima wuxuu la dhashay afaf Oromadu la dhashay imika Oromada haddaan ku soo qaado maad bay isugu dhowyiin af Soomaaliga iyo Oromada imika tirada ku soo qaadaya imika 20 30 40 50 bay qornayaan 50 ha iyaga wax inuu waxaan la konton xageen ku keenay waxaan ku keenay erey kale oo gaboway oo koney la yiraahdo afarta isticmaasha 2 3 4 koney bay ornayaan afartu 2 3 4 bay dhahaan ha waa isku mid way afkan waa isku mid marka waxa weeye xitaa sida qawacidkoodu dhisan yahay iyo sida wax oo dhabo marka afkan madima dad buu la dhashay marka de gooni ma saari karaysid oo ma oran karaysid anagu carab baan nahay anagu waxaasan ku soo jeednaa iyo anaga sheekh hebel waayo waxa dadka leeyahay baan nahay bas dad weynahay mid kale sida sheegaysa waxa la qabaa bani aadmigu inuu geeska Afrika imku taamur badan kama taagna laakiin afka markay timaado laakiin waxa muran badan uu ka iman karaa uu ka taagay ma oran kara laakiin ka iman karaa in Soomaalidu ay kamid ahayd quruumaha bariga jiray wallahi horta afku anta waxa absal caaw ku sheegaya dad Soomaali ma jiraan waatay laakiin afka la Soomaali anu sida qabo waatay etymology ku arkay waxa weeye waxaan eriga markaan dib u macneeyay etymology ku macneeyay aniga wuxuu noqdo wuxuu ka yimid eriga la yiraahdo sam sida dadka qaar ku doonaan Soomaal maaha way sam maxay noqotay sam marka waxay noqotay waxa weeye magac way sam waa magac imika masalan Soomaalidu waxay tahay markaan ku dhahay Axmed baa la yiraahdaa ni qof kale Axmed la yiraahdaa wuxuu ku nahay samigay ha mid kale waa calaamad magaco imika sumad eriga la yiraahdo halkaas ka yimid sumad
waxa weeye calaamad lagu dhigayo wax marka waa lagu garanaya soo maaha samna waa wax lagu siinayo si adiga lagugu garto marka ereygu halkaas uu ka yimid marka Soomaal marka anigu eega waxa weeye afkii magacyada af magacyaal weeye magacyadii markaan eegana waan arkay oo masterka Soomaaliga magac weeye asalahan waatay imaka af hadan soo noqonaya Axmed imaka af baan leeyahay ama il baan leeyahay ama waa magacyo wixii kale say ka sii baxayaan afay de wixii kale dhama ilays ilayn ilba waxa ka bilaabmeen marka magacyada ahaa inaga waxaanad moodaa af Soomaaligu inuu record gareeyay waxaan isleeyahay muddo afafka markii hore malaha bani aadam mar qolobde kuma wada hadlin ee uu develop gareeyay cod kale hadee kolba in haya marba inba ku soo bilaysay marka imka mesela inaga waxaa jira trend yaro cajiib oo marka qofku soo korayo afka wuxuu ka bilaabmaa al ish uf laba xaraf oo noocaas ag marka saas uu develop garaa marka dambe marka waxa weeyaan de waxaan isleeyahay waa af uu record gareeyay sidii uu develop garoobay maxaa markaa ku danaa kale waxa weeye anu waxaan isleeyahay afkan waa af qadiima oo aad u gaboobay laakiin dadkiisa ma haysto ama kugu muuqataa maanta inuu gurmad u baahan yahay sida jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ku doodayso ما يمكن كل شيء في عربي أو سومالي قلت هو إيه وحن كدرسيني عاود ذاتك إن مركي أنا باري يرتنا وحن دوني إن تاير كدرس هذا ماشى سد حوالات بانقبته بدي واحد يرتقي واحد سومالي بانقرة وهكذا يلا وانتوش كلام وانتوش كلام الواحد كلام انقبته وحلا إذا هو أرتوغرافي كنا حوي سي أفكار لوقري كانوا عندما وكاسم كهوي هودي يجلي وحوي إن أفكار الاستاندراز كريه وسكسر لوقرة كسدحاد أنا سداي واحد حلبة تقول تيجي الصومالي هدي لها عفمات كي داينا وإتمولوجيها أنا سداي هلا بس النضاد جوده هو بعد ما ينكرسها وحوين كبدليه واحد واحد إفتيميا هنا في عربية في الصومالي وتنقولها أفوك أفرويشن كا وحباك الدحية مكعب سنة كل سؤال بقول يصير حس كاشن كي أيام بيبر قرأ بيبر كوا حوالي لا ده common origins of Somali and Arabic وحويه إسكو أصل لماذا في عربية يسومالية بوسطن باليجو عسوي شيء لقوا قبل يسومالي ستيريز ها بيبر كي جوا كديبي واللوج واحد واللوجا عالم كوجا إن لما نفحك الدحيان لكن ده التابة أرن كالف كيسي بالله بهنا مركا هذا حويه وحيالها عجيب كحويه أسماله هرود من ما ويحلو ولا لي هي عربية وأفوين أدي هذا يوم هتسي هي أحمد محمد سليبان وكمدا علماء الصومالي دراسة كوسمية اللغة الصومالية qaybta labaad ee barnaamijkeena Hareeriya Hargeysa toddobaad kana waxaan idinku hayaa arrin aad iyo aad uga duwan arrimaha inta badan aynu ku soo qaadno barnaamijkeena Hareeriya Hargeysa abwaan Soomaaliyeed ayaa waa hore waxa laga hayay dayaxa la kala boobaya iyo dirirkii cawlada isagoo markaas canaananayay nolosha ay Soomaalidu ku jireen iyo heerka ilbaxnimada ay ka taagnaayeen iyo adduunyada kale meelaha ay hiigsanayaan haddii haddaba abwaanku waagaasi sidaasi lahaa iyadoo la odhan karayo berigaa bereta weyniba kamuu taagnayn hawada sare ee caalamkan aynu ku noolahay iminka kumanaan qof ayaa la sheegayaa inay saf ugu jiraan ama araaji ay u qorteen in ay ku noolaadaan oo ay tagaan meelaha loo yaqaano Mars saaxiibkii Axmed Xasan Cawke ayaa arrintaasi si weyn ula socday oo iga warramay waxa qabanaya company la yiraahdo Mars One oo wadanka Netherlands ama Dutchka ama Holland sida Soomaalidu inta badan ay taqaano waxana la leeyahay waa in si dhaqso ah araajidaas dadku ay u soo xareeyaan oo shuruudahaas ku xidhan dad ilaa imika soo xareeyay ma jiraan kumanaan ayaa jira bilaahi amarkii Cabdisalaam oo kuyuubaaba loogu jira marka waxa weeye waqti hada inta loo soconayo ma taqaan waatay safarku min dheer yahay moosa waa 8 bilood oo kaliya si soconas 8 bilood waatay oo imika hadii laga qayliyo marka Axmedow diyaaradda marka la tagayo Yurub oo kale halkan laga tagay Hargeysa oo kale 8 saacadood marka la dadka qaar baa la yaaba 8 bilood baa la sii soconaya 8 bilood ayaa la sii soconaya marka waxani waa un horta dhawaan 2018 mid baa tagaya waysa soo noqonaya kan ma taqaana waxa weeyaan meesha maro muuqaal waa maqli jirtay
tigidhku waa kow waa dhinac keli waa socod soo noqosho male dadkani waana shuruud marka waa inaad xaggaa degto وين waxa weeyaan waxaan looga jeedaaba in meesha la dego waayo waxa weeye waxa la ogaaday berigii hore horta de ilaahay dhulkan uu abuuray waqti ahaydba dhulkan aynu ku noolahay meerahan iyo mariikh bishaasi xiddigtaasi mars inay isku cimilo ahaayeen oo ay biyo lahaayeen wax walba laakiin malaayiin sano kadib oo wax isbedbedeleen haddana ay yara kala baydeen laakiin aad bay isugu dhow yihiin baa leeyahay marka dadka tagaya hadda saaxiibay si qaadanay horta way buuxsanaysa sideed bilood baad shafaysaa saad u socotid ayaa tagaysaa qofku waa inuu wax qabsadaa guriga dhistaa waa inuu biyo helaa waa inuu wax beertaa inta waxa soo saaray haydan hore ayaa markaas uu sii cunay wax li haday taasi ka goodan waxay noqonaysaa baa leeydi inuu qolada kale ka daba tagi doonta 2 sanadood iyo bar kadib marka 2 sanadoodba mar baa la baxay 2 sanadoodba mar baa la baxaya marka waxa weeyaan dadkan adduunkuna waa de sootan dunida dacaladeeda la tagi la barigoorna la isma aqoon dunidana aynu ku noolahay waa soo qaado meel kasta Mareykankan iyo dhulkan la degay dadku ma aqoon dad baa sadegana saasoo kala imika loo tagay tiim baa la yara kordhinaya badla tiim baa la yara kordhinaya Mars meel la yiraahdo ayaa la tagaya way Axmedow hadii su'aal kale aan ku weydiiyo dadkan markaa tagaya wax shuruudo ku xidhan ma jiraan mise qofku intuu inac ka yeedayna hirriba inta tagaan isqorayo deed waa la qaadaya horta inaga markiiba la ina qaadi lahaa way shuruudo ku xidhan ma tahay waa inuu adkaysi bataa waa inuu qofku adkaysi bataa waa inuu adkaysi bataa way jawi kasta oo qofkaas wax ku qabsan karaa oo ku geli karaa oo aanu ka ooyinde waa inuu dad la shaqayn leeyahay dabac wanaagsan oo moogta siyaasad waa sifeeni ba la sheegaya wax tar waa inuu noqdaa wa shuruudaha ku xidhan hadayna sida ahayn de kullu caafimaadna wala seeraba ila dadku da iskaashatay noqonayaan of course marka waxa weeyaan dadka halka joogana marka aad u tagtid waa inaad si fiican ula dhaqantaa وين الله قاس عبر الله وركي مارس وحلته جي وحي نوبي بسم الله الرحمن الرحيم هاي موقتي ان وإلا تضبي إلا سديد بلود انتو صعونيا ان باكا قادية هدي سايدو اي كاق قوضا أحمدو واحد تري لبس النوت كدب بقى قلادة كلا صوبح يا مركا ما ييقا وحوقا يدي سو قاضية وحوقا بقى اللي يسأل لورني واركوي لا والله حريرة ياي مركا سايدي واللقوكيني لك زبري قدام وما برنسي هذيك لو حن نقول إنسان عايد لقاته لعقت الوصية دي هذيك شقيسين نسكي جلس بس شرت حاجة عايد قفكم ما صون نقول يو واللي بوح الله هذا يا عبد السلام حسن دمرياشن كوميرسن وحلا يا بقى كون هذا شنطة سنة هل كان هذا وحلا يا بقى كاس إنه طبعا صار نقول ما 20 سنة وهذا 20 سنة جري كيد شو بقول جرا هذا تنادي هذا هل كان نقول نقول 20 سنة كم وصل نقول لكن أحمد ما دام اللي لبض كون يستدي طبعاً سفر كي وجوه ريبة بحياة أو ضد قاضية أو مارس تجية أو صون نقنية هذا نيجي محمد الله يقول صحرية وحلا يقول صحرية وإن النقدان تصال ديتك هذي تطول صون نقدون ماشي لديك ما يموت هاي يجو جوجان وحك حاجة ترى تببر حوجة هو تلصيسين بس كم ترى يوم أو سدية مركز أو ده مركز سيدا وحلا بيرتو adkaysiga biyaha sida loo helo waxa la barayaa oo kala guriyaha sida loo dhisto recycling waxa la yiraahdo sida Yurub ama Mareykanka ma inaanad qubin waa dib u isticmaashado de moogta inta dawiye balaaya lagu daro way korontadana cadceeda laga dhalinaya soo qoraxdi meel walba ma joogto oo waa solar system laakiin sheekada si arkay matqal Cabdisalaam ibka soo mad maqal أما أديكو دي لندن شو قالوا قرنيا كي يرابا صوب حيو هي ليبيا وصودا هي جريجو صوب قالي بل عبد السلام هو كورت وحلا لحد حدا سال يسكت دلاي وحيمان دون ثم تقان إدو قبل يويلكي وانصوت روح الليدي طيح إلهي وصودا فيه ودي immigration كود بدنا كاميرا وحنا مالنا بين الدد مسلمين كويسين لكن سحد دكتي نبتون أيال الشيء يعني أدكتون الدافع كان التكور حي سيد أي مارس هاي لما جري كانوا واتي مركز دمبل صون نقضنا حاسور تقل نقون كرا مركز مخايدة الله فدي مقالة دوكلا مركز هالون سامي كمارتي لي
يركب مطعم فينلاند بكيس ما هي وحكي سكيات بودسة كوبيا توم بالعود ما أعرف مين بس كان تريدني وأنا إن فاكت واحدة عيا وأيو إلهي سبحانه وتعالى مسكح دايرو هالك النوجلي هي أقونتن أوردر دمية بني آدم كي هراء وياشين الديمك على صون نوليو دمك سنو إيجان كورنتادا تلفون كان بابورتن ديارة واحد شيء بس ما سنو بلو قاري هنا way sidee dadka loo kala saaraya markaa dadkan kumanaanka ah ee imika araajidooda soo gudbistay imtixaan baa laga qaaday way imtixaankii laga qaaday huwa muslim immigration ko laga soo sheegay mise ree hebel baan ahay waxa weeyaan inay ka go'naato qofkii tababar la mariyo la eego akhlaaqdiisa 6 bilood marka meel lagu hayo la arko habeen walba midna disaysataan wanaga habeen lagu leeyahay wareerina marka waa taasay kala tahay waxa la sheegaya warbixinaha qaar ay sheegeen Axmed in telefishinada laga soo saari doono min marka dadka la xulayo ilaa markay tagayaan yes waxa weey marka arjiga laga qabto imtixaankeeda lagu marnayo maxaad ka doonaysaa inuu min sideeyaba tahay maxaad isleedahay meesha u jira halka laga bilaabo arjiga diibtid ilaa iyo u tagayo qofku waa live coverage wuxuu soconaya toos baa loo daawanaya ama marka la dhaafaya ayaan dhameystiri safari baanu daawanaynay iyo barnaamijyo Australia laga soo duubay markaas wali marka la faanay war balaanagoo dayaxa barbar marno waxana darag ya mushiinki iyo raxmado markaas aan dayaxa bay nadaji Allah marka deesada la isugu faanay marka waxaan waa wax iman kara aan waxaan soo taagnaa Abdisalaam yani oo warbixintana ku jira aniga iganaan soo gaaday markii dayaxa qofkii ugu horeeyay Neil Armstrong uu ku degay waxaad 1969 secondary-gan ku jiray dugsiga sarade amuud baan joogay markaas la yiri qof binaadana ku degay yuli gaadhay orbit kay marayaan iyo xas macna may lahayn Neil Armstrong baa ku degay dadkeenii bal aqoontii diintana waa lagu kala horeeyay marka aqoon diinoodo aad weyn dalka waxa la isku qabsaday dayaxa lama tay karayo waa la tay kara waan xasuustaa oo safaaradda Mareykanka ee Muqdisho markaas joogtay ayaa waxay soo qaadeen film beriga waxa soo baxay isaguna oo star noqday xidig ninkii heesaagii caanka ee James Brown oo heesiisu bismillaahir rahmaanir rahiim ciid loo haystay ciid yanus labadaas soo barbar dhigaan isagoo ku degayo Neil Armstrong iyo James Brown oo moogtay like sex machine tuu qaadi jiray marka labada wal noo dhigay laan roobal baasida markaas bahalkii la taagi jiray ma jirin waxaniye markaasaan daawanay markaas James Brown noogu tuuray markaasaan iska rumaysan marka imika caawin leenahay Allah inagas Axmed Xasan Cawke aad iyo aad baad mahadsan thank you very much Abdisalaam waxa qaybta ugu dambeysay barnaamijkeena toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaybtii ugu horeysay ee waraysi magaaladan Hargeysa aan kula yeeshay fanaanada codka macaan ee Degan Nuur deegankii wajaaliyo balgabilay demo dalsankii jaariyo allay baday ku soo duure udada fahidmo idogso agamsaha arabsiya tushediyo sayla tarafka saaro ila dooda madaweyn kankaynu daalaco warbajooga dibado intalkeenu odayahay alama dareemine dalka diririgu yaadhelo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biyeen Degan haddii baad qof kale iska soo qaado lagu yidhaa sharax yar oo kooban ka bixi Degan Nuur oo ilaa 20 sakana sharax noocee baad ka bixin lahayd horta Soomaalidu waxay yiraahdaan nin walba qumaniisa qorta ugu jira waxaan u maleynayaa marka inaan sharix lahaa umada meesha ugu wanaagsan baababka ugu fiican inaan isla mari lahaa ya oo waxa la yiraahdaa dadku ha ku sheegaan adigu ha sheegin moogta marka waxa fiicnad inaad adigu 20 minad iyo ka yar iyo ka badan baad adigu aad sharaxdo waa tay Degan Nuur maxaa lagu daraa Degan Nuur Xuseen Degan Nuur Xuseen waa tay haddaan su'aasheeda si kale u dhigo
degan nuur xagee ku dhalatay xagee ku barbaartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa xaafadda Sheekh Madar gaar ahaan laba nuux baan ku dhashay kuna barbaaray markii aan weynaadina koonfurta Soomaaliya xamar ila Boosaaso ayaan korrimadeedii kala ku soo qaatay waatay degan dhinacan heesaha goormaad iyaga bilow heesaha waxaan bilaabay da u bixi kacaanka edaday ilaahay jannah raxmaasiyo Marwe Maxamed fanaanad weynada qaaliga ahayd ayaa iyadoo tiyaatarka tagayso barnaamij la sameeyo October ayaan ka hadhi waayay oo raacay markaan barnaamijkii u raacay ayaa gacan baax oo bixi lagu tababarayo ay igu wareejisay macallimiinta tan waxaan doonayaa inay aniga bedeshay tan fanaanad laga dhigo dabadeedna markaan intii maqlay ayaan isla baxay waxaan sirba alla fanaanad baad noqon kartaa dabadeedna intii dadku heesa kala dad leeyihiin ay ku tababartaan anu heesadan ku tababaran jiray waatay heesaan aad u jeclay maxamed salmaan la qaadi jirtay oo jirtay dadku istiidaaye odabadeed heshiiyaye ay dulqaadoodii gunaye markaa dee dadayna maadaama fanaanad ahayd oo Marwe Maxamed ahayd adeerkayna cali sugu lahaa aniga family-gayga gurigayga abu fanku markaa meelnaba kaaga mu muuqnayn hiddaan anigu ku yimid waatay imtixaankii ugu horreeyay markaa ma la odhan karaa eedadaaba kaa qaaday eedaday soo ku tababartay iyada iga qaaday hay fanaaniintu waxay yiraahdeen heblaaye heesteedii baan ku soo galay heblaayen heeseeda qaadi jiray anigu heesay eedaday baan ku tababaran jiray waatay kuwa kale aad jeclayd ay qaadi jirtay maxaa kamid ahaa heesay gacayta la qaadi jirtay jarahayo inankii jaarko kii jacayl kay bado jahanabu igu wada ijawa bijirta baxjarahayo iyadoo ma ku tababaran jiray fanaaniin badan baa jirtay oo waqtiga ubaxa kacaanka ama barbaarti kacaanka iyaguna kamid ahaa maanta caana qaar ay isku group ahaydeen ma jireen groupka imaka lodkii adigu naga horeeyay oo kale kuwan isku soo gaadhnay laakiin lodahaan nooga horeeyay mahad ayaa la shiray oo kale fanaaniinta caanka la yaqaano oo imaka noqday isagu sheekho xagan qasaydka xaga u badan fanaaniin badan sidan Cabdirashiid Cali Xamari oo kale fanaaniin qolada groupkii naga horeeyay waxaan ku wadi lama soo koobi karo dadkan u bixin bal ka soo anba qaaday markii dambana barbaarti markii dambana kooxdii danan fanaaniin waaweyn oo caanba markii dambana lagu dambeeyay waatay degan marka qofka dhalinyarada uu doonayo inuu fanka ku soo biiro ama fanaan uu noqdo wiil iyo gabadh ku doonaba ha noqdee markuu ka soo jeedo sidaadoo kale qoys dee fankii maaha fanaaniin ay weliba ku talax tegay iyo marka qoys aan fanaaniin ahayn uu ka soo jeedo maxay ku kala duwan yihiin horta markuu qofku qoys fanaana ka soo jeedo wuxuu leeyahay tixgelin gaar ah oo fanaaniintu ku tixgeliso oo imika qofka fannaankaahi oo ninkaahi inanka uu dhalay edebaan nilaahnaa kuwa inantu dhashayna waxaan nilaahnaa habar yar marka tixgelin gaar ah buu leeyahay qofka fannaanku habar yarka uu yahay edada uu yahay maxay ilmaadeerkii waa lagu tixgeliyaa waxa la yiraahdaa waa hebel inaadeerkii fanaaniintu horta qabiil ma kala laha ilaa afka koonfureed ilaa Afrika ilaa Aasiya ilaa Latin America fanaaniintu maaha qabiil waa dad walaalaa waa dad ehela waa dad wax wada cuna dadka dagaalamo maaha oo xabad way ka xaaraansantahay siyaasaddu way ka xaaraansantahay waxaan ku wadi waa dad aad nadiif ah oo intii dhibaatadu wadanka ka dhacaysa amba burbur ku dhacayay fanaan lagu yiri qori busito dad budle ma jirto amba fanaan lagu oranayo koox buu wato waa dagaal ooge ma jiro annagu waxaan nahay dadka nabad qaar lagu xamanayay baa jiray maya kaas anagu ma anagu waa xaqaaga laakiin anagu wax shaahida ma naan maqal laakiin fanaanku waa ka xaraan inaad qabiil xitaa taageertood maxay hayday u tagto qabiil kale waatay ubaxi kacaankaad gashay sida qiyaasaya barbaartaad uga sii gudubtay malaynkaas baad haystay markaa laakiin ma ubaxi markaan ka baxay fanaanad caadi aan noqday waatay waxaan tagay xamar baan tagay Boosaasan tagay Boosafankay ka sii aan baqaaday khaliijkan wareegay markii dambe khaliijka markaan wareegana fanaanad caan ah khaliijka ka halkee Dubai magaalada Dubai oo dadda mandaqadada Imaaraadka markaan anigu dhalinyarana oo ahaa fanaanadna oo ahaa markaa halkaas caan fankayga ka noqday heesahaad is leedahay fankaaga way soo saareen kuweebaa ka mid ahaa heesaan aad u jeclahay oo la yidhaha dalmar midhaheedu soo dhacaan ma ogtahay darada daawadi
naftaydo inan dibadda meeroon daabaco jacaylka waa tay heestaasi dalmar ayaynu qadar ka daawan doonaa wahagaagintaasna waxaa ku dhan qaybtii ugu horeysay ee waraysigii magaaladan Hargeysa aan kula yeeshay fanaanada caanka ee Degan Nuur qayb kale oo waraysigaasina waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenan Herer iyo Hargeysa toddobaadka dambe haddii alla yiraahdo intaynu barnaamijka kan xiga dib ugu kulmaynana aniga iyo asxaabtaydu waxaan idinkaga tageynaa intaas iyo nabadgelyo